qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan magaalada Oodweyne ayaa maanta kulan ay isugu yimaadeen waxay hambalyo u direen wasiirka wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Somaliland kaasi oo ay ku hambalyeeyeen maamul daadejinta xiriirka kubadda cagta muddaynta ciyaaraha gobolada iyo waliba waxqabadyada ay wasaaraddu ka hirgelisay gobolka Daadmadheedh. bahda isboortigu wuxuu daaran yahay inuu isugu nimisaaka inaanu ugu hambalyeeyno wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha heer qaran iyo wasiirkeeda sida abaabulan iyo sida kartida iyo dhiirinaanta ay ka muuqato ay ugu dhawaaqeen maalinta shalay ahayd in la qabanayo koobkii gobolada Jamhuuriyadda Somaliland oo arrin aanu soo dhaweynno dhalinyarada reer Somaliland dhamaanteed ay soo dhaweynayso. marka labaad waxaanu wasiirka uga mahad celinaynaa arrimaha waxqabadada ballaaran ee gobolka iyo dalka oo dhan uu qabanayo. waxaanu shirkan marka ugu horeysa ku taageerinaa wasiirka ciyaaraha ee dhalinyarada boos mire maxamed oo ruuxaantii xalay ku dhawaaqay in booskii xiriiryaha kubadda cagta ee Somaliland cod lagu dooran doono 14 gobol ee Jamhuuriyadda Somaliland xilka gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta oo bariga hore Hargeysa ahaan jiray 30 kooxood oo kamid ah kooxaha Hargeysa ay dooran jireen. mudane wasiir maanta waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinaynaa inaad noo dhamaystirto garoonkii Oodweyne. marka labaad waxaasna aad u hambaleynayaa saamiga aan helnay maanta inaan codkayga aan ku dooran doono gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Somaliland. waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo isagu noo suuro geliyay inuu sanadkan ku amro wasiirka dhalinyarada ciyaaraha in uu sanadkan lagu daro beerolka ama waxaan leeyahay lagu daro miisaaniyad sanadeedka sanadka garoonka kubadda cagta Maxamed Cali Stadium Oodweyne oo runtii bilowgiisii imika uu bilaamay dhamaystirkiisana insha Allah wasaaraddu dhamaystiri doonto hadii Ilaahay yiraahdo. wasiirkuna waajibaadkiisii ahaa inuu bilaawo dhismaha garoonka dhamaystirana uu imika waajibaadkiisa ku jirana taa horta aad baan uga mahadnaqayaa ka xukuumad ahaan. tan kale ah maanta horta fariin baan gaarsiinaynaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha muddooyinkii u dambeeyay sida wada ogsoontiin ama sidanu ognahayba waxa jiray in gobolada galbeedku ay madaxa xiriirka ciyaaraha ama madaxa isboortiga xiriirka ay lahayd inta badan nin Hargeysa jooga uu qaadan jiray. laakiin maanta maadaama anaga ku hadlayno magaca gobolada bari oo aanan gobolkayga ku koobeen Oodweyne ahaan aan ku hadlayno magaca gobolada bari maanta waxaan marti u nahay in la siiyo kursiga ama marti looga dhigo gobolada bari. isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Daadmadheedh Daahir Nuur Shukri oo gabagabadii isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxay ku hamiyeen dhalinyarada goboladu ayuu maanta qaaday boos mire maxamed. talaabadu qaaday waxa weeyaan xiriirka kubadda cagta ama xiriirka kubadda cagta Somaliland in maanta awal hore ay dooran jireen 30 kooxood oo Hargeysa oo ay ku dulmanaayeen gobolada oo dhani. laakiin maanta go'aanka uu qaatay wasiirku waa go'aan ay ku codeynayaan gobolka Sool ilaa gobolka Boorame inta u dhaxaysa ay codeynayaan 14 gobol ee Somaliland ayay soo imanayaan way codeynayaan. sidoo kale wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha boos mire maxamed waxaan uga mahadnaqaynaa haddaanu nahay dhalinyarada Oodweyne shacbiga Oodweyne inuu noo socdo garoonkii kubadda cagta ee gobolka Daadmadheedh. sidoo kale waxaanu ka hadlaynaa haddaanu nahay dhalinyarada reer Oodweyne oo aanu taageeraynaa inuu wasiirku maanta ku dhawaaqay maalintii shalay ahayd ku dhawaaqay koobkii gobolada Jamhuuriyadda Somaliland oo ay naawilayeen dhammaan dhalinyarada Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan. Muuse Salebaan Maxamed warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Oodweyne.